inaad soo yara badataan baan rajeynayaa muuqaalkaygana waxaan rajeynayaa cid walba oo uu khuseeyo oo maaragtay dowlad hadday noqoto shicib hadday noqotaba arrintani cid walba ay khuseyso ayaan maanta fariin halkan uga dirayaa wax soomaalinimada ka baxsan dhaqamada adduunka ka jira sharciyada adduunka ka jira maaragtay ka baxsan yacni qaab daran oo maaragtay meel aan u qaado aanan xataa garanayn baan kala kulmay runtii oo igu adagtay xataa inaan haydhgareeyo ama aan qariyo ama aan qarsado ama aan la aamuso waxa dhacday warqada ayaan uga baahday magaaladan anigu waan ku dhashay Hargeysa muddo 27 sano ah baan maaragtay dhalashadayda laga joogaa hadda ilaa habeenkaa ku dhashay ilaa habeenkaa maanta ahna inaan maaragtay meel aan deganaansho kale oo aan qaatay ama wadan kale oo deganaanshihiisa qaatay oo aan ku noolahay mayna jirin 27 sano da-adaa 27 jirka waxaan kusoo gaaray magaalada Hargeysa xaafadii aan ku dhashay ee aan ku koray baan weli deganahay dugsi hoose iyo mid dhexe iyo mid sare iyo heer secondary iyo heer jaamacadeed Hargeysa ku gaaray dhan walba waxaan ahay mar waxaan ahay hooyo mar waxaan ahay inan dhan walba waxaan kasoo jeedaa Hargeysa marka laga tago qabiilkaan anigu ahay anu qabiil ahaan yacni ciil dartii baan xataa hadli karlahay ani qabiil ahaan Hargeysa qabaa'ilada dega kama mid ihi laakiin de qabiil wax ka weyn baan aniga Hargeysa ii yaala oo dhalasha ii taala adduunka 60 3 sano 5 sano lagu qaataa anigu 27 years oo age-kayga baan Hargeysa ku qaatay waxyaabaha igu la yaabka badan leh xanuunka badan leh ee maanta aan Hargeysa kala kulmay ee doonayay inaan idin la wadaago cid walba caqli lana maanta aan qaadin karayn waxa weeyaan waxaan u baahday faro boolis ayaan meel hawligaga xidhnayd waxa la igu yiri faraha nabadgelyada wadanka aad ku nooshahay process aan anigu watay oo dhoofba waxa la igu yiri faro nabadgelyo waxa lagaaga baahan yahay magaalada aad ku dhalateed ku barbaartay wax dambiye inaad ka gelin faro boolis baa laga rabaa بعدين فريق بوليس CID ذا Somaliland بقاطع هل كان كبحي CID بان تجي لعق بالصوت بحياة مالية دلوق صوت بحياة لعقتي بان صوت بحياة رسيل كي أنا كسر بحياة لعقتان صوت قاطي وحلا إمد حفيز كي CID ذا CID دي مركان لا يمي وحيقول هدين ورقدن آد سيدتو وحلو بهاي CID ذا فرما قادنا إلا يقف وسيتو كارد على الشو أو Somaliland كارد على الشو ذا مركز صوت قادتيد أيانو فرح CID ذا كمارينينا halkan ka doontaa baan idho waxa la igu yiri waxa tagtaa wasaaradda arrimaha gudaha waxay igu tiri anaga ma bixina ID cardada lumay ee dib loo cusboonaysiinay ayuma anaga bixina laakiin kuwa cusub dawladda hoose laga doontaa dawladda hoosana waxa lagaaga baahan yahay caaqilka reerkiina lagaaga baahan yahay oo qabiilka aad tahay caaqilkiisa ayaa lagaaga baahan yahay aniga markaa warqadahan farahaygan booliska 100% ii muhiimsanaa dariiq walba oo farahaygan booliska aan ku heri karayo ayaan doonayay falowgeeda inaan maro waxaan tagay dawladii hoose ayaa la igu yiri caaqil baa lagaaga baahan yahay caaqilkii baan raadiyay aniga caaqil de maadaama qabiilkayga aan meesha deganayn qabiilkayga caaqil aniga halkan uma joogo laakiin mid reerabti haday tahay oo la raadiyo iyo hadii ay tahay maxay ahayd mid caruur aniga aan dhalay caruurtayda oo dhashay Somaliland qabiil ahaan Somaliland ka soo jeeda aniga aan ku dhashay caruurtayda ay ku dhashay yani systemkayga oo dhan halka uu yahay waxa raadiyay caaqilka caruurtayda ay ahaayeen waxaan u sheegay inaan warqad dambi la'aan faro boolis aan u baahanahay farii booliska ka dhalasho la igu xidhay kaarkii dhalashadana la igu yiri waxa lagaaga baahan yahay caaqil reerkiina ah anigana caaqil halkan iima joogo aniga deegaan ahaan de waan ku dhashay waan ku barbaaray Hargeysa laakiin aniga qabiilka aan Soomaali ahaan ka soo jeedo Hargeysa caaqil uma joogaan ee maadaama caruurtayda caaqilkoogii tahay kaarka damaanad caruurtayda inaad iigu soo qaado ama mid dhaxdina iigu soo qaad ama mid idinku badalashadiina aad iga dhigaysaan iigu soo qaado kaarkaas ay muhiim si aan faraha booliska u maro wuxuu igu yiri adeer maxay ahayday caruurtaadana waxba kuuguma qaadi karo oo caruurtaada dhalashadooda waad ka madax banaan tahay adiga dhalashadaada iyo qabiilkaaguna maadaama aanay Hargeysa ahayn oo gabadh maaragtay deegaan kale ka soo jeedo qabiil kale ka soo jeeda aad tahay kuma damaanad qaadi karayo dhaxdina kuma damaanad qaadi kara dhalashana kuma damaanad qaadi karaye system kale oo aad wax ku fushan karto soo raadsan buu igu yiri waa sax baan idhi dawladii hoosaan tagay dawladii hoose markaan tagay waxaan ku anu gabadh Hargeysa ku dhalatay baan ahay gabadh Hargeysa ku barbaartay baan ahay gabadh Hargeysa wax ku baratay baan ahay
hargeysa anu meel laba ugama bixin deganaansho wadan kale ama haysto dee qof citizen oo Somaliland rabaan waxaan u baahanahay kaarka dhalashada Somaliland baan u baahanahay fara boolis baa iga xiran process baa iga dhacay waqtigiisii oo safaaradda la iga raba si degdeg ah farahayga inaan u soo xareeyo kaarkaas baan u baahanahay waxa la igu yiri qoladii dawladda hoose kadinka horta markaan sidaa uga istaagay waxay igu yiraahdeen qolama tahay waa dawladda hoose kadinka ugu horeeya ee laga galayo wiilka fadhiya ugu soo horeeya kaarka dhalashada Somaliland qabaa'il baa lagu bixiyay qolama tahay biigud aniga markaa maadaama qoladii ka soo quustay caruurtaydu ay ahayd oo igu yiraahdeen damaanad kuma qaadi karno kaarka kuma qaadi karno subhanallah yani hatta ma hadli karayo taynan halla igu adag yani waxa qaab darida meesha igaga dhacday marka meeshii dawladda waxay ku raadeen qabiil baan u baahanahay yani waxaan ka ooyaya qaab yani fool xumada meesha taalan ka ooyaya yani wax fool xum weeyaan marka waxaan ku yiraahdo kaarkaas aan u baahanahay process baa iga dhacaya waxaan u baahanahay farna badgaliyo kaarkan dhalashada iga soo galeen anu meel kale oo idin tixraaca ma garanayo shahaadooyinkaygii dugsi sare la heer jaamacadeed baa halkan yaala wadankii aan ku dhashay ku karan ku barbaari hooyaday ku dhalatay anu ku dhashay ubadkayga aan ku dhalay weeyaan kaarkaas aan u baahanahay waxay igu yiraahdeen kuma siinayna kaarkaas qabiilka aad tahay ee saxda ah noo sheeg dhalasho iyo inaan meesha ku dhalatay mid reebtilooyay mid ku kortay midna ma qusayso adiga dhalashadaada kuma qaadan kartid deegaan nooma tiid halkan waa sax baan ku yiri waan iskaga soo baxay waxay igu qaatay 3 cisho inta kol CID da la yidiro kol dawladda oo soo la yidiro kol wasaaradda arrimaha gudaha la yidiro waxaan u baxay hadana CID baan ku laabtay waxaan ku yiri maanta CID da tagay ugu dambeyn last decision kii ugu dambeeyay waxaan ku yiri CID markaan tagay anu gabadh di aad dirteen baad ugu tiraadeen dawladda hoose ka soo dhamow dawladdii hoose waxay igu raadeen Somaliland darmatid ama ku dhalo ama ku kor ama ku dal ama ku dhaqan qof qabiil ah baa la doonaya hadii aanad qabiil ahayn waxba kuma siinayna cad bay igu raadeen halkaas ay soo mariyeen waxaad ii sheegtaan waxa xal ah maanta aan ku heli karo faraha booliska anigu maadaama ii diideen inaan citizen noqdo anoo ku dhasho ku kor inta ku la ekaaday رالي هذا ما تشعلين إنها نهرتي نكويو لكن حتى عنصري ما مدي كرا حق وحنو لي هاي حقوق بان لي هاي قفك بني آدم كصدح سنة وضن لقونا ولا مشان سنة وضن لقونا ولا بشرعي جيس عليه لا قف كل شيء أو 60 سنة أو كل دلي أو كل دقمة أو كل شيء نورك هذا بدأ مركان ماشي مركان تجي وحكون واحد إيش شكتان ما دام إيدي دينا سومالاندر هاي ما دام كاركي دلشده إيديتين ما دام عاقلتي ضمينا لا يقول هذا ما دام القبيل كاتي كم ضمينا نينو ما دام دلشيه دحدين يدنا بعدي حريم ويدين سيستم آن مرو أو waxay igan ku fudaysado oo farahaygan booliskun aan idin ka maro bal ii sheega baan ku yiri aan already dhalashadiinana iska bahaysta mar hadii aanu isaaq noqon waayo isaaqnimo aad igu siin weydeen iska bahaysto system aniga aan maro ii sheega meesha CID markaan tagay dadkii shaqaalaha hore ahaa ee maaragtay xagga xafiiska hore fadhiyay si gobanimo la ii soo dhaweeyeen waan ka xunay bay igu dhaadeen maaragtay inaad saas oo dhan aad u dhibaatootan ma jeclin arintaadana waan ku dhameynaa sida ugu dhaqsaha badan laakiin sarkaalka ugu weyn meesha ugu sareeya ayaa lagu gelinay isagu wuxuu maaragtay uu ka yeelo ayaan markaa eegaynaa ما يودي سشكل عفوا حيقول هذين هدي نقوم ويدي دلشة أهان أي كوجو سيم وعين قلنا إن دولة دهاسة دجنا شق هذا بيقول هذين دجنا شو محوي هاي بانكوري وحيقول هذين كارد دجنا شا وين القاعدة كارد دجنا شا فرح بوليس كوجو سميننا CID ده أو واحد كوري سيدين دجنا شا وقعت حاجين كسو جوري
xageen intaan kasoo guuray Hargeysa aan ka imid deganaanshaha systemka aan ku qaaday sababta aan deganaanshaha u qaaday la deganaanshaha qof wadan kale kasoo guuray baa wadan deganaansho ka qaata oo sharciga wadan kale qof sitaa wadankan maaragtay deganaansho ka qaata anu waaba ku dhashay waaba ku koray intaan ku leekaade maxay tahay deganaanshaha aan soo qaadanaya ee aan la tagaya xafiiska xagee ka keenaya anu waaba ku dhashay ilaa aysan deganaansho qaadan karaa qof ku dhashay sidoo cashuur u bixin karaa deganaansho qaadan karaa hanti baan ku leenahay waan ku dhaqanahay waan deganahay maxay wax walba waan ku wadanaa intaasoo sanana waan ku soo dhaqnay waan ku soo kornay waan ku soo barbaarnay sideen u qaadan karaa deganaansho wadankii aan ku dhasheen ku koray sideen deganaansho u qaadan karaa way gudbiyeen marka ninkii CID da markaa ugu sareeyay ma garanayo magaciisa ay igu gudbiyeen systemkaygii buu ninkii waday baa u sheegay wuxuu ku yiri inantan waxay tiri wadanka waan ku dhashay waxay tiri waan ku koray waxay tiri waxbaan ku bartay waxay tiri waan ku dhalay oo caruurtaydu maaragtay deegaan ahaan xataa hadii la eego halkan ka soo jeedaan warqad CID bay u baahatay warqadii CID da ka dhalasho lagu xidhay kaarkii dhalashadana ilaa caaqladii way u suurta gelin waayeen oo waxay yiraahdeen kuma damiinaan karna maadaama qabiil nala ahayn wadanka qabiil deegaanad ahayn deerantan sidaynu system ugu fududeyn karnaa ninkii ugu weynaa meesha ii galiyeen wuxuu warbuuxa ku yiri deganaanshaha qaadata gabadha waxaan ku deganaanshaha maxaa u taqaanaan anu wadan kale kama soo guurin magaaladii aan ku dhashaan jooga systemkan deganaanshaha ku qaadanaya muxuu yahay systemkan fara boolis baaban u baahanaan idin leeyahay wadankiina waan deganahay maxay tahay deganaanshaha aan raadinaya ee aan meel kale u raadsanaya haddii aanad deganaansho hadaad qaato faraha booliska waan ku marinaynaa kaa dhalasho haddaad sidatana faraha booliska waan ku marinaynaa dee dhalashadii waad ii diideen oo Somaliland darmatiid baad igu tiraadeen intaasoo sano aan ku noolaa ku dhaqmay ku dhashay intaa ku leekaada ii diideen dhalashadiinii qabiil ahaan baanad igu diideen qabiil meeshan degamatiid baad igu tiraadeen reerka halkan degamatiid kuma siinayna warcad soo maaha system kale oo aad ugu tala gasheen dadka aniga ila midka ah ee maartay qabiilkan dadkan aan u dhalan la midka ii sheeg oo maro waa deganaansho wadankii waan deganahay hanti baan ku leeyahay waan ku dhaqanay waan ku koraan idin leeyahay systemka aan deganaanshaha ku qaadanaya muxuu yahay hadaba caruurtaada the systemka caruurtaada soo mar oo anan yaana wadanka u dhalan oonan xaq u lahayn maxaa caruurba keenay anigii baaba maya systemka caruurtaada soo systemkii caruurtaydu uu idiiday oo caaqilkii caruurtaydu ay lahaayeen wuxuu igu yiri kuma damiinan kara kaarka dhalashadana kuma soo qaadi karo cad buu igu yiri anu kaarkii dhalashada hadda mubarabe warqadayda faraha booliska nabadgelyada inaan wadankiina wax dambiye ka galin aan safaaradayda kaga xareysta hawshayda oo kaliya tan anu hadda idin ka baahanahay iska badaaya systemkan kale hadalkii waxay igu soo gunaanadeen kuma siinayno maadaama ninkii CID da ugu sareeyay wuxuu igu yiri miyaa kala tagteen inanka isaaqa ah ee caruurtaada dhalay maad kala tagteen haa waan kala tagnay oo arman caruurta nagala baxsanaysa sideen fara boolis ku siinaa yacni wax caqli bini'aadanimo caqli insaannimo caqli soomaalinimo caqli dhannaba dad aan xirin baan horta la kulmay marka anigu maanta fariiman halkan u marinaya Somaliland fariintan u marinaya waxay tahay dee dadku wada qabiil ma noqonayaan ilaahayna wada qabiil kama dhigino ilaahay ba qabaa'il inaga dhigay intii maartay isuran ee meel wada degta ayuun baana maartay anu aqaana dad isku deegaan inay yihiin deegaankan anigu ka soo jeedo kuma dhalan kuma korin ma kala aqaan meesha ugu fogeen arkay haday ugu badato waa caasimadeeda meel kale ma arkin wadanka aan ku dhashay ee hooyaday ku dhalatay ee anigu aan ku dhashay ee caruurtaydu ku dhalatay ee aan wax ku bartay ee intaa ku soo leekaaday maanta danta iga soo gashay in la igu yiraahdo hadii aanad caaqil noo wadin oday ah oo reerkiina ah oo wadanka daga waxba nuguma liida xaq iyo xuquuq nuguma lihid wadanka adduunyada ilaahay meelay ka dhacdayna ma jirto meelay ka jirtaana ma jirto ummadu xaq bay leeyihiin xuquuq bay leeyihiin kuwii qaxoontiga ahaa ee qaxoontiyada ka baxay Mareykan iyo Kanada joogay baa 60 sano ah oo maxay ahayd baasaboorka Mareykanka sita oo la xaq ah oo la xuquuq kuwii cadaanka ah wadanka u dhashay anigoo wadanka ku dhashay xuquuqda aad ii diideen yaad siinaysaan anigoo caruurtayda halkan ka dhalatay xuquuqda iyo xaqa aad u diideen yaad siinaysaan anigu waxaan garan la'ahay dee idinkan inaad adduun weynihii ictiraaf ka raadinaysaan oo leenihiin 30 sano ictiraaf raadinayna dadkii idinla dhashay idinku dhex koray idinla maartay dee ilaahay idinku dhex beeraad wada korteen dee isku maart systemka haydeena inaad leedihiin ma ictiraafsano dad jira ma aha idinkiina inaad adduunkii u cabanaysaan horta laba is qabanaya ma aha wadanka deganaansho u qaadana deganaanshaha system ba adduunka lagu bixiyaa qofku waa inuu sharci wadan kale sitaa waa inuu wadan kale ku nool yahay waa inuu wadanka kale markuu ka yimaado wadankan imanaya deganaansho la siyaa isagoo loo tixgelinayo wadankii uu ka yimi wadan kale aanu kama iman magaaladii aan ku dhashay sideen deganaansho ugu qaadan karaa sababta yacni
fadlan ay soo wicina sababta aan deganaansho hargeysa ugu qaadanaya waa sabab maxaya aniga danba iga soo gashay danta iga soo gashayna waa faro bolis inaana wadankan wax dambiye ka gelin waxa kaliya ii samayn kartaan waa inaad farahayga booliska ay siisaan systemkii aad imariseen hadduu system qabiil noqday qabiilkii aan noqon waayeyna system kale oo dadka aniga ila midka ah inaad u martaan bay ahayd anuu iskuma aqoonin qof wadan kale yacni waxaad igeliseen wax aan weligay xataa iga biidoonin yaa wax maaragtay foolxumo ah oo aad u fara badan baa meesha taala marka hadiiba ay dhacdayba inaad leedihiin anagu kaliya ta waxaan wax siinaynaa qofka deegaan ahaan maanta isaaqa ah ee meesha degan kaliya wax siinaynaa iyo inta deegaanka ee soo raacda ee wadanka deegaan ku ah dad aan wadanka qabaa'il ahaan deegaan ahaan qabaa'il ahaan ahayn baa jira oo dhalasho sidaydana ku dhashay ku koray ku barbaaray cimrigoodna soo joogay aan wadan kale iyo adduun kale uba kicinba anaga dadka nala midka ah maxaa laga yeelay markaa ma qabiilkaasaa tahay ayaa xaqii aanu lahayn lagu duudsiiyayaa yacni qabiil baa tahay cashuur baana laga qaadaa hanti baan wadanka ku leenahay waan degannahay waan ku kornay waan ku dhalanay wadan kale soomaaliyeedba kumaana korina manaanan arag maxay tahay marka cuqdada intaa la eg ee maanta anigu xaqaygii aan kaga waayay inaan system dowladeed weligay ma hor istaagin system dowladeed maanta waxay ka galeen maantana yacni niyad jab iyo cuqdadii abid ugu xumeyd baan kasoo qaaday ya waan ka xumahay anigu maanta waxa kaliyaata ee aan raadinaya waxa weeyaan faraha aan anigu u baahanahay faraha aan anigu u baahanahay ee dambi la-aanta ah ma aha inaan kaarkii dhalashada aan u rabo kaarkan dhalashada hadduu qabiil iga galay waan ka samray laakiin wadanka aan joogo system aan ugu noolaaday adduunka system baa adduunka lagaga noolaadaay qofka bini'aadanka system uu ku noolaadaa jirta imaayo inuu qaxoonti ahaado imaayo inuu sharciga wadanka haysto iyo imaayo inuu maxay ahayday kaarka deganaanshaha wadanka uu haysto anu qaxoonti ma noqonaya wadankii waan ku dhasho waan ku koray kaar deganaashana ma qaadanayo wadanka loo kasoo guuray ma jirto aqoonsigii aan xaqa u lahaaye sharciga ahaa haddii aad iga duudsideen systemkiina dowladnimo intaan ku hoos noolahay sideen u fushanayaa markaa yacni sida aan u fushanaya systemkiina dowladnimo ee aan haddaan xafiis wax uga baahday haddaan meel wax uga baahdo systemkiinii dowladnimo haddaad ku xidheen card maaragtay qabiil aad ku xidheen anigana qabiilkii ilaahayba igama dhigin mana noqonayo khasabna kuma noqonayo yani xaggeen maraya bal systemkanaan u baahanay anuu dariiqii aan mari lahaan xaqayga ku heli lahaa ayaan maanta reer Somaliland uga fadhiyaa dad ba waxay oranayaan Somaliland sharcigeeda u ooyisa Somaliland sharcigeeda rabtaa maya waxaan diidayaa dulmigan diidayaa qofka bini'aadanka dulmigu shay xun weeyaan sida qofka bini'aadanka ay nafahooda ugu diidayeen dulmiga in dulmi la qaato wax wanaagsan maaha sharciga aad idinku dejisateen hadduu sharciga noocaas yahay oo aan idin tixgelino inaad qabiil wax ku bixisaan dadka idinla dhashay ee idinla nool ama aad dhashaan ama idinku dhex koraan ee wadankiini jooga system noocyada ugu tala gasheen ila qof wadankii ku dhashay oo abidkii soo deganaayo cashuur bixinaya weligii deganaa ku dhashay ma qaadanayo kaar deganaansho system aan ku qaato kaar deganaansho nafsadayda bil walba cashuur uga bixiyana meesha ma taalo oo $30 bil walba la igu dhada waa degantay wadankii cashuurkeen anoo hantidaydii waxaygii noloshaydii oo dhan taalo marka waan ka xumahay waxaanan filanaynin oo fool xun oo maaragtay soomaalinimada ka baxsan islaamnimada ka baxsan dhaqan islaamiya dhaqan international oo gaal isticmaalo xataa midnaba kuma jirto dhaqanka gaalkana sharciga system baa lagu qaataa deganaanshaha system baa lagu qaataa qaxoontinimada system baa lagu galaa intaa midnaba aanu maanta kuma joogo marka weligay xarun dawladeed ma istaagin weligay saldhig dawladeed ma istaagin weligay dalka waxaan inaan wax soo galiyo mooyo weligay wax dhibaato uma geysan in maanta xaqaygii markaa lagu duudsiyo oo la igu yiraahdo qabiil hadaanad keensanayn oo aanad qabiilka keensanaynin waxba kama tiid halkan maaragtay wax aad u fool xumayaan wallahi waa wax aad u fool xun waxaad foolxun dawladda hoose kadinkeedii markaan ka galay waxa la igu leeyahay qolama tahay yaa tahay qolama tahay CID markaan tagaa la igu leeyahay yaa tahay qolama tahay yani adduunka system dawladeed baa ka shaqeysa qola kama shaqeysa systemka dawladeed baa loo hoggaansamaa
hadda anu farahayga dambi la-aanta ah waxaan ka doonayaa dhammaan madaxda arrintan ay khusayso systemkii aan u mari lahaa farahan dambi la-aantan waddanka uga baahanahay si anaaba waddanka xaqii xuquuq ku leh cashuurtaad iga qaadiseen xaqaad iga qaadiseen xuquuqdaad iga qaadayseen iyo taaka walboo la qaado cashuurtaad igaga qaadaan xaqeedii baan u baahanahay anigaygii maanta maaragtay haddaan anigaygii ajnabi noqday oo aad leediin ajnabi baad tahay oo waddanka dhalasho kuma lihid aad leedihiin ajnabinimadeyda aan ogolaade bal xuquuqda waddankan lagu joogo ee dadka aan qabiilkan ahayn ay ku joogaan baan idinka baahanahay oon idinka fadhinaa inaad na siisaan ilaan qof waddankii ku dhashay oo joogo cimrigii taagnaa deganaansho ma qaadanaya macquul adduunka meeli ka jirtaa ma jirta system deganaansho lagu qaatana maaha systemkaasi subxaan allah